بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب سوري هذا خيار شرفت له أنا هو إنجنير صادق حسن بوه مالمحا وحاسو شرحيني إن عشرة حساب سن إلكترونيك خيبتيسا ديجيتال سيركيوت maanta waxaan miiska noo saaran waxaan sharxi doonaa hadduu eeb idmo insha allahu tacaala cashirka loo yaqaano notget. waa sida ujeedaan waa jaantuuska ama integrated circuitka oo halkan ku sawiran ayaa maanta rabnaa inaan sharax explanation yar inaan ka bixino. waa hadeer kan waxa waaye integrated circuitkii waaye oo dhammaystiran. waa midkan waaye midkan aa ujeedaan midkan aad ujeedaan iyona midkan waa isku mid. waa midkan device-kii kan waxa waaye waa sawirkii halkan idinka muuqan. sida ogsoontihiin wuxuu leeyahay biinaha oo halkan kaaga muuqdo waa halkan waa 7 halkan waa 7 waa 24. kuwii hore aan soo sharxeynay xogaarkan wuxuu ugu duwan yahay kan wuxuu leeyahay one input ah iyo one output ah. waa notget-kii. okay notget-kan ayaan sharxi doonaa insha allahu tacaala jaantuuskiisa iyona wixii oo device-kii qalabyadii iyo wixii isku xirkii ayaan samayn doonaa hadduu eebidmi insha allahu tacaala. nala socda asxaabta sharafta leh. qalabyadii oo hore aan isticmaalayn kama duwana kuwaasaan isticmaalaynaa. waa keliya waxay kala duwan yihiin waa sawirka jaantuuskii iyo wixii natiijada soo bixi lahayd si u shaqeynayso iyo kala duwan tahay, laakiin waxay ku siman yihiin dhammaantood inay leeyihiin 7 bin. qalabyadan isticmaalayna waxaa ka mid ah sida tan breadboard-kii waa midaan waa loo yaqaano breadboard-kan ayaa ka mid ah. ayaan wax dhan ku dhisi doonaa insha allah hadduu eebidmo. iyo waxaa halkan ka haysanaa resistance 220 ohm oo resistance halkan ka haysanaa. waa midaan halkan ka haysanaa oona isticmaalayno. iyo halkan kale waxaan ka haysanaa marka jumper wire-kii ama fiilooyinkii kalarka noocyo kala duwan ah halkan noo diyaarsan isticmaali doonaa insha allah. iyo halkan kale waxaan loo baahan yahay waa battery-dii oo danab dhaliyaha ayaa halkan loo baahan yahay oo 9 voltage-ka ah. waa kana halkan ay qoran tahay waa 9 voltage. iyo halkan kale waxaan ka isticmaalaynaa LED light-kii light emit diode-kii ayaa halkan ka isticmaalaynaa. waa midkan ayaan light-kan ka isticmaali doonaa insha allah hadduu eebidmo. nala socda asxaabta sharafta leh. haddana waxaan gud galaynaa marka dhisidii insha allah hadduu eebidmo. marka hore midkan device-kan aan haysano oo circuit-ka ah halkan ayaan ku dhisi doonaa insha allah. waa sidatan marka hore saan u geli already waa ku diyaarsan yahay. waa midkan aa ujeedaan waaye midkan aa ujeedaan deer waxaan isticmaalaynaa qayb ka mid ah qaybtan aan isticmaali doonaa. nala socdo wixii kan aan ka dhisi doonaa insha allahu tacaala. keliya waxaa loo baahan yahay one input iyo one output ah. iyo sida kale waxaa loo baahan yahay 5 voltage-ka oo ah VCC oo 5 voltage bin 24 iyo ground iyo 7 waa ground waa dhulkii GND-gii. kadib marka waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala building-kii aan samayn doonaa insha allah. marka hore hal fiilo soo qabso ku sameey. waa hal fiilo one-kan waa input-kii waa input soo qabso halkan keenso. waa input-ka uu ku diyaarsan yahay. output maxaan ku naqlaya marka keenso resistance 220 ohm soo diyaarso connection garay. waxaa gelinaya marka output-kii number 2. hore waxaan gelin jirnay number 3. kadib marka waxaa keensanaya marka hal fiilo oo ah
bin 14 ama 14 waa halkan 5 voltage halkan connection garay fiil kala keenso oo 7 waa halkan groundigi waa 7 number 7 halkan minuska join garay soo qabso LED light kii qaybta dheer waa positive qaybta yarna waa negative soo qabso fiil kale oo dabka siinaysay halkan keen halkan join garay marka maxaa ku helay marka waa battery hadda halkan nagu diyaarsan battery halkan noo xirtay waa positive iyo negative waa fiilada guduudan waa positive midda midoona waxa waaye negative waa kana halkii waa noo soo shidmay intaan gudi gelin sharaxaada marka hore waxaan sharxi doonaa insha Allah theory iyo noo diyaarsan ayaan sharxi doonaa kadibna wixii isu shaqeeyaan ayaan isla bardhigi doonaa insha Allah okay waxa maanta halkan ka sharaxi doonaa aan sharaxadiisa hayna hadeer waa not gate key logic gate circuit key waa sample keys waa sida tan waa a waa input waa saxda soo sheegay waa a input waa in waxa waaye markaasay output waa kali waxay leedahay marka laba shay ama waa in iyo out horan waxa isticmaalin waa input ka laba aha output kana hal waa equation keysna waxa leeyahay markaasay a waxa la mid tahay markaasay may y waxa la mid tahay a bar waa one input iyo one output truth table kiis wuxuu leeyahay sida tan a iyo y hadii a ay tahay 0 halka y waxay noqonaysaa markaasay 1 waa reference waa markaasay ama opposite ama hadii waa input haduu 1 yahay ama haduu daaran yahay waa output ku waa inuu dama aan aragno intaan hadeer ka soo qaad waa shirin yahay waa output kii waa 1 waa shirin yahay marka output kiis muxuu noqonaa markaasay waa hadii oo output hadii input ka oo 0 yahay waa output ka waa 1 hadii input ka 1 yahay oo daaran yahay waa output kiis wuxuu noqonaa markaasay 0 suppose hadda ka soo qaad waa output kii aan joognaa markaasay oo noo shirin yahay marka input kiis muxuu noqonaa markaasay waa input ka halkan keen waa kaasna waxa way markaasay waa input key waa 0 halka output ka ay tahay markaasay 1 waa input ka waxa deer waxa waaye waxana aad markaasay 0 halka output kan uu ku yahay markaasay 1 okay haddana aan soo celino aan dhahno markaasay hadeer waxa noo shaqeeyay aan dhahno waa waayo hadeer waxa waaye kana waxa dhahnay ishaqadi input kan waxa waaye halka waan ay tahay markaasay output haday tahay macnaa 1 hadeer input haduu 1 yahay output kan wuxuu noqonaa markaasay 0 waa tan hadeer aan ka shaqeyn waa markaasay okay hadda soo qaad halkaan noo soo celi bartiis aan soo celino hadeer wuu shidan yahay waa input kii waa hadeer 1 waay wuu shidan yahay output wuxuu noqonaa markaasay 0 aan sameeyna markaasay output kii warka waxaan rabnaa inuu noqdo 0 oo off graysmay kaliya markaasay aan badalna markaasay input kii halkaan aan keena markaasay kan ka dhig waa output waa input key
kadib marka inputkii maanta waxaan ka dhignaa markaasi 1 waa inputka hadduu 1 yahay outputkana waxaa noqonaa markaasi 0 inputku waa 1 outputkana waxaa markaasi 0 akhyaarta sharafta leh waa midkaan waa maanta aan sharxayn waa waaye not getkii kali waxa waaye hadduu yahay laba shay iska ilaalinay bas adiga true table case hadduu inputka oo 0 yahay waa outputka waa 1 haddana soo celi haddana inputka ama outputka hadduu 0 yahay waa inta leeyahay haddana inputkana muxuu noqonaa markaasi 1 waa intaas waaye asxaabta sharafta leh waa cashirkeena shanaad maantana waxaan ka baxnay waa not getkii logic circuitkii ayaa maanta sharaxnay insha Allah ta'ala asxaabta sharafta leh markas nala socdo waa cashirkii shanaada marweynaha hadeer aad u mahadsantihiin asxaabta sharafta leh markasna soo dhawaada ha moogaanin inaad subscribe noo saartaan like share commenting inaad soo baxstaan insha Allah ta'ala waa janaalkiina Somali Taj Lab markasna waxa waaye inaad xurmaysaan waa janaal ka baxo runtii afkaaga hooyo oo luqada oo Soomaaliga ah markastana waxaan dhiirgelin سمين دونا إن شاء الله تعالى وانهوكسر دونا electrical electronic engineering قيبه سكالو دوان يعني شرح دونا إن شاء الله تعالى سورة ودا أصحاب شرفت له مر لبعض نحن الله هاي سورة ودا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته